maanta waxaan la joognaa reerkan ubax maxamed diidaan ubax waxa ay haysataa inay yar oo xanuunsanaya muddo 15 jira marka ubax wal waxaan weydiinaynaa in maxay heday duruufaheeda xaalka inay nooga waranto duruufaheeda gaarka inay nooga waranto ubax ina ka magacii Zakariya Abdurrahman baa la yiraahdaa imka wuxuu jiraa 15 jir weeyay 2007 buu dhashay waa agoon bismillaahirrahmaanirrahiim halkan waxaan deganeen imka inaan ka yara xanuunkiisa horta markii hore soo suuxaa control ma leh harakaadna ma leh maanta u dambeysay imka muddo ilaa 6 cisho sharabaada yar carruur yar leeyna walaashii leedahay aniguna aan yara baxay wax uu doonay iyo laqay 6 cisho saxaraba muu dhigin wax yar buu ahaa sharabaadadan yar carruur kan yar baa iyo lahaa dhagaxaanta quraaradaha wax walba saxarada intuu xarabo dib wax iyo cunaa dabeetna maanta ilaahay baa ka soo saaray 6 cisho isagoo saxaraba dhigin ilaahay baa mahad leh laakiin maanta duruufaha haysta waxaan halkan waxaan ku haystaa 5 caruura inaan ku 15 jir oo agoona maxay ahayd tole caafimaad darro halkan 10 sano aan deganaa dhulkan aan deganaa xitaa ma lihin anagu waxaa la shicib baas kale maandhow dadkii ilaha way yimaadeen way saysteen waxay yiraahdeen bishii koobaad baan imanaynaa waan u baahanaa dhulkayagii oo naga kaca oo waan bisanaynaa ka guuraba nagu waka halkan uu siisan yahay oo ninkii ilaha baa yimid carruurteedu waa 5 ka weyn waa 17 jir waa agoon carruurteedii dhagaxaanta yar baan oo guryaha lagu dhisaa nolol maalmeedkii meel kale iga soo gala malihi taana de anigiiba bukaan socod noqdo wadna xanuun baan leeyahay ilaahay laakiin fuaad oo dhowr jeer aad noo timid oo daad naga wara haysta oo nagu soo noqnoqotay raashimo iyo de mustayaal wax walba aad nasiisay daad naga wara haysta laakiin wax ka horeeyay ka dambeeyay toona ilaahayna uu naarka u mudin wayogtay halkan waxaan deganeen 10 sano waxa weeyaan waa kaamka nasaablo barakaca nasaablo kaamay waxaanu nahay degmada Macalin Haarun cidna war naga ma hayso ilaahay mooye dad kale oo jilicsanna way jiraan oo dadku way kala daran yihiin maanta anigu ilaahay mooye ila aadan oo aan leeyahay maanta oo inay ilaahay igu ogyahay meel buu wax ka soo galaya ama cid baad wax ku caawinaysaa ma jirto waxa nagu daran imika hooylaanti caafimaad darro ilmihii meel aan u dhaqaaq karaa meel nolol maalmeedkii ubadkii aan u raadinayo iyo hooylaantii oo kii lahaa oo taagan yahay oo leeyahay naga waanigii dadkii la mid kaba waayo wajaadii baan fadhinaa inaan keerna aad biiga xanuunsanaya control ma laha may mar baan wadaadday iyo wax geeyay waayo awood baan aanu hayn fuaado awood uma hayo laakiin wadaado dhowr jeer baan geeyay quraan baan saaray waka waayahay in waarkiisa kulli ubax weyno wartay joogtay inta ka joogtayba in kulli wiil jooga وانا شريك سنيبانا أودي إلى الجنة فاتوا عن صوت الشيء نشرتين وما هاي شربات ميرا تيوم بقي نشرتين نحشوا حلوة نحشوا فريسين لكن دعوا أو صودا إلهي بان أنا هل كل يسوي حلوة كاتب الإنسان إلهي واحد كبر إن إلهي عافمات السيوف يجعل محل هذي خير بدن وسيله رزقنا إلهي وبلاري إلهي بوحد بقول كره إلهي وحده وسيله أنت باهن يجلب إن والله إني محسنين تعالوا خلينا هاي دوات السنة الله هو ينور في هذه كتبتنا كانوا وقتي هاي تتوسل بالليل وتوصل جاي ومن قاضي
ولما سياسة هاي كل يوم يسوي وحنا نقول كانوا حافظوا على ذلك marka xalay markii siyaasada imsaak halka uu soo jarnay walaal sadaqadu waa dawo ilaahay uu dhamaantii baa inoo barakeeyo qaar daba joogay qaar daba wax ku soo tari kartaan waa ku soo tari oo soo doontaan la barno soo doontaan oo wax iyo kaayaga wax soo qorayna insha Allah ilaahay khayr badan ka rajayna Sakariya in waa kan halkan ayuu jiifaa Sakariya intaasaan u leeyahay waa 15 jir weeyaan gacan ku barana caafimaad inuu ilaahay siiyo ma hadlayo waa arkaysan halkaas u jiifaa in ilaahay baa caafimaad ka baxay ilaahay caafimaad siiyo u soo duceeyo ducaduna waa waajib ilaahay ka aqbali doono ilaahay baa og inuu ducayno waa kan halkan ay ku nool yihiin wax halkan meesha aniga sharaab baan ku nahay alaabadan aad arkaysaan waxa weeyaan ummadda ilaahay oo day in keentay weyn sax laakiin habaha waxa alaabadan inaan dhigto malaha kasto saaranahay ina karnaa qayban jiifiya oo inteydii artayda karnaa ka soo seexana waayo gooyay dhinacna waa ka iska dodoloshan iyo hareeraha sax way awood nooma hayo talabaad ee kale kiilaha wuxuu ka guuray waayahay waa halkan ay ku nool yihiin waa halkan weeyaan roobku nagu daa aye dadku soo gala halkan aan deganahay waa biyo mareenkii weey biyo fadhiista halka sare uu nagu daa waxaan arkaysaan halka xitaa uu daloshan yahay waqtiga dhaxantana wallahi alxamdulillah saacadii dambe marmar qaarkood ubadkaan u kacayo yara xaabaan u shida waliba intii dambe wadigan Fuad Umar yarna bustayaal noo keenay dhowr jeerna wax uu noo keenay uu naga warahayaa khayr Allah siiyo iyo marka ummadda Nabi Maxamed muslimiinta meel kasta joogto waa Ilaahay dartii aan ugu caawiyaan oo ilaahan iyo caafimaad daro ilmaha meel aan la dhaqaaq karayno adduunna u hay bismillaahir rahmaanir rahiim idin ka arkayna kala 15 jir ummadda muslimiinta meel kasta joogtada wixii Ilaahay dartii la baxsan idigu caawinaysan lambarkii Fuad Umar yaraygu hagaajiya dadkii ilaahay xiriirka hore igu caawin karana lambarkayga shaashada way ku qoran tahay kaydina waxaana ka sii jecelahay inaan kayna dib u hagaajisaa Fuad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalo gabadhan waa gabadh iska dunuufaysan waxaan kula xaaladeedu iska barakaysan tahay ilmo 15 jir oo baarlaysiba u yaala oo imka in badan ba waxaan ku dhahday wallahi u daadsanaa waa agoon waxaan ku shan carruur ay haystaa waxaan ku dhahday ilaahay mooyaane waxa ruuxu maqanin ma jiro dadka caawinaya mooyaane inaan ka Fuad Umar yare ilaahay barakeeyo ilaahay gargaaray inaan ka subhanahu waxaan ku dhahday meesha ku oo maxaan ku dhahday kolba wixii uu hayo soo fidiya marka waxaan muslimiinta ka maxaan ku dhahday ka codsanaa walaal in gabadha hoos loo eego oo maxaan ku dhahday loo soo wixii lagu soo tarkay